بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta oo sabti ah bishuna ay tahay 16 November annagoo ah madax siyaasadeedka isbaahaysiga weyn ee mucaaradka kuna magac dheer BSN waxaanu soo marnay socdaal dheer oo aan fududeyn waxaanu socdaalka ku soo marnay oo lu ku soo marnay wadooyinka ugu waaweyn uguna taariikh dheer ee caasimadeena marka socdaalkaasi waxaan runtii ugu tala galnay inaan fahanno tabashooyinka dadkayaga inaanu dhageysano baahidooda oo aanu ka jawaabi karno rajadooda marka aanu hogaanka aan gacmaha ku qabanno hadduu ilaahay raado sida ay walaalahay soo sheegeen waxaanu soo marnay CTLR baan soo marnay maskaladeedii geelabetel baan soo hormarnay kartesiis baan tagnay booyadii riidezeel baan marnay avenue 26 baan marnay arxibaan marnay wadooyinkaasi runtii waa wadooyin ku suntan taariikhdeena iyo dhaqankeena maantase waxa ka muuqda foolxumo ka dhalatay burbur iyo uskag waa wadooyinkii runtii aynu matali lahaa sharafta iyo taariikhda iyo horumarka dalkeena waa wadooyinkii aynu ku faani lahayn ee loo soo dalxiisi lahaa waa wadooyinkii ay caruurteynu ku ciyaari lahaayeen iyagoo xasiloon oo farxad leh waa wadooyinkii runtii ay lagu wada caawin lahaa ay qoysasku ku wada caawin lahaayeen laakiin maanta waxaa ka muuqata ay calaamad u yihiin dayaca iyo maamul xumada waxa isdhexgelaya sida ay soo sheegeen walaalahayba biyihii oo wasakh ah iyo qashinkii oo isdul yaala runtii waxay noqdeen sidii uu gaalku odhanayay waa impraticable tant pour les piétons que pour les véhicules bay noqdeenoo waxay ku jiraan xaalad aad u daran bay ku jiraan walaalahay runta markaa laga hadlo waxaan la soo kulanay saa ay sheegeen waayeel murugoonaya hooyooyin walbahaal uu ka haysto aayaha caruurtooda iyo runtii dhalinyar su'aalo culus oo maxay ahayday aayahooga iska weydiinaya walaalahaygiyo maanta waxay ku sugan nahay waa nolol daran ayaynu ku solannahay maxaynu ku mutaysanay inay nolosha aynu ku noolaano waxaa la yidhi lax waliba shililka isdigto ayaa lagu qaraaye ma ogolaanano inay caruurtayadu maxay ahayday dhaxlaan wadooyin burbursan ma ogolaanano ummadda caruurtayadu inay dhaxlaan aayo mugdiya markaa waxaan rumaysannahay annagu BSN waxaan rumaysannahay inay jiri karto Djibouti qurux badan Djibouti sharaf leh oo Djibouti maamuus leh oo isbedel iman karo yaanu aaminsanahay taana waxaynu ku gaadhanaa walaalahaygiyo waxaynu ku gaadhanaa waa shaqayn annagu halkan uma joogno ballanqaadyaal been ah uma joogno waxa u joognaa ficil daba ayaanu u joognaa markaa waxaan leenahay walaalahaygiyo si aynu u helno Djiboutiga cusub ee sharafta leh ee quruxda leh waxay u baahan tahay in la wada shaqeeyo u baahan tahay oo codkeenan aamusay inaynu kor u qaadno aynu midayno aynu nidhaahno ma ogolaanano. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.